السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena gurfaynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxa kamida muxuu Arne Slot ka yiri guushii ay xalayto kooxdiisu ka gaartay kooxda Southampton muxuu Mareeska ka yiri guushii ay kooxdiisu ay ka gaartay markaasi kooxda Lincoln sidoo kale muxuu macallim Alonso ka yiri xasuuqi kooxdiisu ay u geysatay Levante كول بالمر وجبي ريكور ونيمار هورا ودغاي لا ليغا او شاعي sababta Lamine Yamal uu ku waayay abaalmarinta Ballon d'Or-ka Barcelona oo go'aan kama dambaysa ka soo saartay saxiixa Marcus Rashford kadib casaankii Southampton hoogiga Tete oo ganax ku seegaya kulan weyn xidig Real Madrid oo Lamine Yamal ugu hambaliyay kaalinta labaad ee uu ka soo galay tartanka xiisaha leh ee Ballon d'Or-ka Mikel Arteta oo ka hadlay sababtii Luis Kelly waqti fiican uu san u ciyaarin haliyay Manchester United oo shaaciyeen Badri uu mudna ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d'Or-ka iyo sidoo kale kooxaha haysta Ballon d'Or-ka ugu badan oo la soo saaray aynu ku bilownay tababaraha Liverpool Arne Slot ayaa ka hadlay kadib markii kooxdiisu ay 2 gool iyo gool kaga badisay Southampton taasi oo Reds u suurtagelisay inay u gudbaan wareegga 16 tartanka Liga Cup-ka Slot ayaa yiri ma ahayn bandhigii ugu fiicnaa waxa taasi ka filan kartaa marka aad la imaato koox gabi ahaanba cusub oo ay ku jiraan ciyaartooy mudan ciyaaristooda isagoo ka hadlay qodobada wanaagsan ayuu intaasi ku daray Georgie Madmashvili wuxuu ciyaaray kulan wanaagsan sidaasi oo kale Federico Chiesa iyo Giovanni Leone Alexander Isak ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay Hugo Gitetina waxa uu dhaliyay mid kale waxa jiray waxyaabo wanaagsan laakiin marka laga eego qaab ciyaareedka guud ee kooxda iyadoo aan la rumaysan karin Southampton inay si fiican u ciyaartay bandhigeeduna ma ahayn kan ugu sareeya mar laga hadlay kaarkii jaalaha ee labaad ee Tete ka dhashay siibashadiisa funaanada xilligii uu dabaaldegay goolka Slot ayaa yiri hadii uu gool dhalin lahaa isagoo 3 ciyaaryahan ka dhex baxay oo kubadda gees ka dhigay waxa laga yaabaa inuu xaq u yeeshay inuu isaga u wareego dhanka kale laakiin goolkani oo kale hadii aan aniga dhalin lahaa waxaan aad ula dabaaldegi lahaa Chiesa sababtoo ah isaga ayaa orodkiisa ka caawiyay fursadani in markaasi la siiyo dadka kale tababaraha Chelsea Enzo Maresca ayaa ka hadlay kadib markii kooxdiisu 2 gool iyo gool ay kaga adkaatay Lincoln City taasi oo Blues u xaqiijisay booska wareegga 16 Liga Cup-ka waxaan ogeyn in kulankan uu ahaan doono mid adag waa koox aad u halis badan Lincoln waxayna si weyn ugu tiirsan yihiin laadadka dhinacyada laadadka xorta iyo tuurista gacanta ee gudaha xirada ganaaxa taas ayaana ahayd inaan si adag u difaacano wax yar ayaan ku dhibaatoonay qaybtii hore laakiin qaybtii labaad aad ayaan u fiicnayn ugu dambeyntii waan guuleysanay ma ahayn kulan sahlan ciyaartooyda aad ayaan horay ugu sheegay inuusan fududaan doonin waa sababta aan uga carooday qaybtii hore waayo waxaan ogeyn inaan si wanaagsan u ciyaari karin guud ahaan ciyaarta oo dhan sababta aan u dareemay dhibaato yar xilli diyaar garowga kulanka shalay ma ahayn arin wanaagsan balse iyadoo Liam Delap horay uga maqnaa ma rabin inaan qatar galiyo sidaas daraadeed fursad ayaan siinay ciyaaryahan Georgia iyo markaas yiri macallin Enzo Maresca dadka kale tababaraha Real Madrid macallin Alonso ayaa sheegay in kooxdiisu ay wali gaarin heerkii ugu fiicnaa inkastoo 4 gool iyo gool ay kaga adkaadeen Levante Alonso ayaa yiri waxaan u baahanahay inaan si fiicnaano si wanaagsan aan u shaqeynaa balse waa inaan ka dhisnaa guulaha oo horumar sameynaa waxa jira waxyaabo badan oo la hagaajin karo markasta aynu haysano ciyaartooy sidan u wanaagsan oo dabcan loo adeegsan karo boosas kala duwan waxay ka dhigaysaa wax walba inay ku fudud yihiin Alonso ayaa ka hadlay guuleystaha toddobaadka kulankii horyaalka xilli ciyaareedka Vini aad ayuu u fiicnaa waa ciyaaryahan aad noogu muhiima wuxuu sameeyay bandhig dhameystiran waxaana Vini uu lahaa go'aanka door qaadashada ee ugu weyn ee uguna muhiimsan mar la weydiiyay kulanka Madrid derby ee soo socda waxa uu ku jawaabay anigu diiradda waxaan saarayaa kulankan aanu ciyaarnay bari ayaan bilaabi doonaa ka fakarka kulankaasi Madrid ayaa heshay 18 dhibcood bilowga xilli ciyaareedka waxayna 5 dhibcood ku hogaaminayaan Barcelona oo ku jirta kaalinta labaad kulanna gacanta ku haysata xidiga Chelsea Cole Palmer ayaa sameeyay taariikh kadib markii bandhigiisa Ballon d'Or-ka ee sanadkan uu qayb ka noqday isagoo kaalinta 7aad kaga dhameystay tartanka abaalmarinta sharafta badan ee Ballon d'Or-ka
Balmer oo 23 sano jir ayaa xilli ciyaareedkii hore dhaliyay 18 gool isla markaana caawiye ka noqday 14 kale 52 kulan oo u saftay Chelsea xulkiisa England. waxqabadkiisa ayaa ka caawiyay Blues inay ku guuleysato UEFA Conference League iyo FIFA Club World Cup-ka, halka uu sidoo kale kaalin muhiim ah ka qaatay in kooxda Stamford Bridge ay dib ugu soo laabato Champions League kadib markii ay kaalinta afraad ku dhameysteen Premier League. xidigii hore ee Manchester City ayaa sidoo kale si fiican ku bilowday xilli ciyaareedka cusub isagoo 2 jeer shabaqa soo taabtay 4 kulan. Chelsea ayaa horyaalka Club World Cup-ka haddana kaalinta 6aad kaga jirta Premier League. bandhiga Balmer ayaa taariikhda galay maadaama uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay tan iyo sanadii 2011 ee kaalimaha 10 sare kaga dhameysta Ballon d'Or-ka isagoo aan ciyaarin Champions League. Neymar ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee sidaasi sameeya 14 sano ka hor. abaalmarinta sanadkan waxaa ku guuleystay Ousmane Dembele oo Paris Saint-Germain u diiwaangeliyay guushii ugu horeysay Champions League isagoo sidoo kale la qaaday Liga 1-ka. Lamine Yamal ayaa galay kaalinta labaad kadib caawintii kooxdiisa ee hanashada horyaalka, halka Fatinia uu kaalinta 3aad qabsaday isagoo qayb weyn ka qaatay guushii Paris iyo xulkiisa qaranka ee National League Portugiiska. madaxweynaha liigaha Qafiya Tebes ayaa sheegay in xidiga da'da yar ee Barcelona Lamine Yamal uu ku waayay abaalmarinta Ballon d'Or-ka sanadkan sababo la xiriira da'diisa. Ousmane Dembele oo ka tirsan Paris Saint-Germain ayaa ku guuleystay abaalmarinta halka Yamal oo 18 sano jir ah uu ku dhameystay kaalinta labaad. si kastaba weeryahanka Barcelona ayaa mar kale ku guuleystay Copa Trophy oo loo yaqaano ciyaaryahanka da'yarka ugu fiican, taasi oo ku guuleystay 2 jeer oo isxiga. haddii uu ka weynaan lahaa 23 waxa uu ku guuleysan lahaa waan huba, laakiin maadaama uu da'yar yahay waxay siiyeen abaalmarin kale oo Trophy ayuu yiri Javier Tebes. dhanka kale madaxweynaha Barcelona Joan Laporte ayaa ka duwan aragtida Tebes isagoo qiray in Dembele uu xaq u lahaa Ballon d'Or-ka sababtoo ah in Paris Saint-Germain ay ku guuleysatay Champions League. kooxda Barcelona ayaa heshay sida Marcus Rashford uu la qabsaday kooxda kadib amahdii Manchester United, balse waxay go'aan kama dambaysa oo ku saabsan iibkiisa kaga fakari doonaan ilaa iyo xagaaga soo socda. weeryahanka 27 sano jirka ayaa 2 gool dhaliyay, 2 kalena caawiye ka noqday 3 kulan ee ugu dambeysay, waxaana la sheegay inuu si wanaagsan ula qabsaday garoonka iyo nolosha magaalada. inkastoo heshiiska amaahda uu kula jiray ikhtiyaar 26 milyan oo iiba oo lagu iibsan karo hadhowdii, haddana mushaaraadka sare iyo xaaladda dhaqaale ee Barcelona ayaa keentay in go'aanka dib loo dhigo. Rashford ayaa riyadiisu tahay inuu muddo dheer sii joogo Camp Nou, iyadoo sidoo kale inta loo arko bedelka macquulka ee Roberto Lewandowski kaasi oo qandaraaskiisa uu dhamaanayo xilli ciyaareedkani. Liverpool ayaa ganax ku weyn doonta weeryahankeeda Francisca Ekitike kulanka Premier League ay Sabtida wajihi doonto Crystal Palace kadib markii laga saaray ciyaartii Liga Cup-ka 2 gool ay kaga badiyeen Southampton. Ekitike ayaa bedel ku soo galay qaybtii labaad isagoo bedelay Alexander Isak, waxa uu helay kaarkiisii ugu horeeyay 8 daqiiqo gudaheed markii garsoore Thomas Balmer uu dhaleeceeyay go'aan uu qaatay kadibna uu kubadda iska tuuray, taasi oo sababtay jaalaha. dhamaadkii ciyaarta ayuu dhaliyay goolka guusha, balse dabaaldega uu funaanada ku siibay ayaa keentay kaarkiisa labaad ee jaalaha, taasi oo sababtay in banaanka looga saaro ciyaarta. sida uu qeexayo xeerka ganaxyada kaararka cas ee lagu dabaqayo kulanka xiga ee tartamada maxalliga ha ahaado horyaalka ama koobka, taasi macnaheeda waa in Ekitike uusan safan doonin kulanka Liverpool ee Salzburg. si kastaba ha ahaatee 22 sano jirka ayaa diyaar u noqon doona ciyaarta Champions League Talaadada. Reds ay wajihi doonto Galatasaray ee magaalada Istanbul, iyadoo safarka toddobaadka dambe ay u aadi doonaan kooxda Stamford Bridge Chelsea. weeryahanka Argentina iyo kooxda Real Madrid Frank Mastantuono ayaa diiday in la barbar dhigo xidiga Barcelona ee Lamine Yamal, isagoo sheegay in diiradiisu tahay adeegida kooxda iyo guulaha wadajirka ka hor intaanan laga fakirin abaalmarinta shakhsiga.
Mastantuuno oo ka hadlay kadib guushiis 4-1 ay kaga gaareen Levante ayaa yiri waxaan u hambalyeynayaa Lamine Yamal oo kasbaday booska labaad ee Ballon d'Or-ka waa ciyaaryahan weyn waxa uuna u baahnaa qirashadiisa aniga ahaan waxaan isku dayaa inaan qof walba la barbar dhigin balse aan xoog saaro inaan u ciyaaro kooxdayda waayo waxaan aaminsanahay in heerka shakhsiga uu yimaado bandhiga wadajirka haddii kooxdu ay si fiican u shaqeyso oo aan hawsha si habboon u qabanno waxay caawinaysaa ciyaaryahan walba oo u muuqda waxa muhiimka waa dadaalka guud arrimaha shakhsiga iyo isbarbardhiga waxay yihiin mudnaanta labaad Mastantuuno ayaa haatan ku jira waqti gaar ah oo Real Madrid kadib markii uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda taasi oo muujisay awoodiisa iyo riyooyinkiisa mustaqbalka uu ku leeyahay kubadda cagta ee Yurub tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa ka hadlay sababtii Lewis Kelly loo siin waayay waqti xadidan oo ciyaareed xilli ciyaareedkan kahor kulanka Carabao Cup ay la leeyihiin Portovale mararka qaar waxa sabab u ah qaab ciyaareedka ciyaartoyda kale waxa joogi kartaa heer wanaagsan balse qof kale ayaa markaasi joogi kara heer ka sii duwan heerka adiga haatan taagan tahay waxaana laga yaabaa in aniga aan go'aanka ugu dambeeyaan lahaado taas macnaheedu ma ahan in Lewis uu qalad galay gebi ahaanba taa way ka duwan tahay marka la helo fursad waa inuu muujiyaa heerka uu joogo kor ku soo qaadaa go'aankiisana uu ka dhigaa mid adag tababaraha ayaa sidoo kale xaqiijiyay doorka Lewis Kelly uu ku leeyahay kooxda marka aad eegto Lewis wuxuu joogaa waqtigiisii ugu badnaa oo qaadan lahaa isagoo weeraryahanna ama difaaca meelaha qaarkood wuxuu aad ugu badan yahay qadka dhexe marka loo eego booska difaaca laakiin waxa jira waqtiyo uu booskaasi u baahan yahay inuu galo wuxuu gebi ahaanba sameyn karaa taasi wax ka duwan wuxuu horay u muujiyay karti wuxuuna ku sameeyay heerarka ugu sareysa Champions League sidaas daraadeed su'aal kuma jirto awoodiisa laakiin fursadiisa ayaa dhiman ayuu markaasi yiri Arteta halyeyga Manchester United Paul Scholes ayaa faalla ka bixiyay natiijada abaalmarinta Ballon d'Or-ka isagoo Bedri kaalinta 11aad uu ku dhameystay qiimeynta Scholes ayaa sheegay in Bedri uu mudnaa in loo caleema saaro ciyaaryahanka ugu fiican adduunka aniga lambarkayga koowaad waa Bedri markii aan daawaday kulankii Newcastle oo ku hor yimid waxaan iriyaab wuxuu la mid ahaa Xavi Iniesta oo isku dhafay ma ahan kaliya lugihiisa balse gaar ahaan maskaxdiisa kubadeed mararka qaar wuxuu ku jiraa xaalad adag haddana si uu uga baxo isagoo adeegsanaya kubadda isdhaafsan iyo si degdeg ah ayuu markaasi u wareejiyaa farsamadiisa waa mid cajiiba markii Newcastle ay gool ka dhaliyeen waxa harsanay 8 daqiiqo oo lagu daray waqtiga waxaan moodayay in ciyaartu ay noqon doonto mid xiiso leh laakiin Bedri 7 daqiiqo oo kamida 8 daqiiqo isaga ayaa kubadda lugtu ka hayay wuxuu gebi ahaanba xakameeyay ciyaarta waxaan u arkay inay taasi ahayd mid heer sare Bedri ayaa maalinba maalinta ka dambaysa kasbanaya kalsoonida halyeyada qadka dhexe ee dunida soo maray waxaana la saadaalinayaa in mustaqbalka dhow ku guuleysan karo abaalmarinta Ballon d'Or-ka guusha Ousmane Dembele ee abaalmarinta Ballon d'Or-ka ayaa u saamaxday Paris Saint-Germain inay ka mid noqdaan 6 kooxood ee ugu guulaha badan abaalmarintan kooxda Paris Saint-Germain ayaa haatan hadatay abaalmarintii afraad taasi oo la mid ah Manchester United hogaanka waxa haya Barcelona oo leh 14 Ballon d'Or Juventus iyo Real Madrid oo ku wada jira kaalinta labaad oo min 9 haysta waxaana ku xiga AC Milan oo 7 jeer qaaday halka Bayern ay haysato 5 jeer oo markaasi lagu qaaday Paris Saint-Germain iyo Manchester United ayaa iyaguna ku jira kaalinta iyagoo qaaday min 4 jeer ama markaasi lagu qaaday min 4 jeer